madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa caaway wacdaro ka dhigay hoteelka aljaziira ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulankii ugu ballaarnaa oo ka dhacay halkaasi iyo xildhibaano gaaraya kordwaad 120 mudane oo ka kala tirsan aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku qaabilay halkaasi mooshin degdeg ah oo ka dhana aadan madoobe oo ka socda halkaasi guuxa mooshinkan oo gulgalay guud ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xogihii ugu dambeeyay ayaan ku lafaguri doonaa iyo waxa baarlamaanku xilligan ku haystaan aadan madoobe oo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka loo doortay markii labaadna ku guuleystay xilkaasi waxaan sidoo kale ku lafaguri doonaa dhaqdhaqaaqyada uu gudaha baarlamaanka ka wado madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sababay aadan madoobe intee xildhibaan ayaa diyaarisay mooshinka ka dhanka sidoo kalena saxiixday iyadoo baarlamaanka la horgeyn doono aadan madoobe iyo sidoo kale xildhibaanad Sacdiye Firimbi oo ku kacay fal waxshinimo ah gudaha baarlamaanka dhexdiisa shargaray oo faafiyo xogtan dhammaan taageerayaasha wadaniyiinta ah ee Soomaaliyeed muuqaalkan la garay dhammaantiin ay ilmaaminayna muuqaalka la garaysaan YouTube-kana subscribe saarta bogana Facebook-na follow-na soo dhaha ku mahadsanidin isku soo laabasho wacan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wacdaro la yaab leh ku soo bandhigay hoteelka aljaziira wuxuuna madaxweyne farmaajo muujiyay saameynta uu ku dhexleeyahay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya taasoo cabsi gelinaya walwal ku haysa kooxda damjadiid oo qorsheynayay in ficilo guracan ay sameeyaan inta ay jagada ama sidoo kale xilka hayaan iyaga oo kooxdan dad maqaar saar ah u magacaawday sidoo kalena markaasi lacago ku laaluushaya kuwaas oo ku dhex jira gudaha baarlamaanka ama xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu la kulmay xildhibaano gaar ah kuwaas oo ah jamaahiirta nabad iyo nolol ay ku dhex leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama xildhibaano ka tirsan nabad iyo nolol waxa ay seeftu qaadi doonaa sida la sheegay maalmaha soo aadan madoobe oo xildhibaanadu ku eedeynaya inuu ka baxay dhexdhexaadnimadii kadib fal waxshinimo ah oo uu geystay maalintii la dhaarinayay madaxweyne farmaajo taasoo shacabka Soomaaliyeed ay aad u hadalhayeen haddaba muxuu yahay falka ku kacay aadan madoobe oo ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo laga doonayay dhexdhexaadnimo isagoo dhexdhexaadnimadii ka fogaaday aadan madoobe ayaa waxa uu markaasi la xantay xildhibaanad sareedo xildhibaanada lagu magacaabo Sacdiye Firimbi oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana la maqlayay hadallada Sacdiye Firimbi iyadoo oo lahayd xildhibaanad sareedo markii ay kacday ficil la yaab lana ay sameysay kaasoo shacabka Soomaaliyeed ay aad loo yaabeen waa markii madaxweyne farmaajo loo dhaariyay xildhibaanimada ayay xildhibaanad sareedo waxa ay sameysay inay abaabushay xildhibaanada nabad iyo nolol iyadoo markaasina shacabka iyo sidoo kale mashxarada ay ku dhufteen baarlamaanka hoolka dhexdiisa taasina waxay niyad jabisay taageerayaasha kooxda damjadiid ee gudaha baarlamaanka ayna ka mid yihiin xildhibaanad Sacdiye Firimbi iyo aadan madoobe Sacdiye Firimbi ayaa waxay si toos ah weerar ugu qaaday xildhibaanad sareedo iyadoo oo tiri hadalkan xildhibaanad sareedo ma joojinayso galaangalka xildhibaanada waxaana ka cabsi qabnaa inay mooshinno nagu daad wararacayso waxaa loo baahan yahay in si degdeg ah loo keeno xorheesoodka si ay adeeb u yeelato aadan madoobe ayaa markaas u jawaabay xildhibaanad Firimbi isagoo uu ku yiri waa ay edab daran tahay xildhibaanad sareedo hadalkaas oo mikrofoonka markaasi ay u dhawaayeen kaas oo laga qabtay iyagoo islaha mikrofoonku ma daarno oo wudansan yahay waxaan hadalkan uu qabsaday baraha internetka waana mid ay ka gadoodeen xildhibaanada nabad iyo nolol ee ku sugan gudaha baarlamaanka ama xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan taasina waxa ay keentay in xildhibaanad sareero ay abaabulkii ugu dambeysay gasho iyadoo markaasi jawaab degdeg ah ka bixinayaan hadalkii dhaqan xumada ah ee uu kula kacay aadan madoobe waxaana ay taasi keentay in xildhibaanadu isguushaarsadaan iyagoo kulamo la yaab la qaadanaya madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana dhawaan la filayaa in qodobkan la horkeeno baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan kal fadhiga ugu soo horeeya iyadoo khatar ugu jira aadan madoobe in xilka qaadis degdeg ah lagu sameeyo dhanka kalena saaxiibayaal hogaamiyaha kooxda damjadiid Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waji gabax ceeb iyo foolxumo kala soo laabanaya maalinta Isniinta magaalada Garowe ee caasimadda Puntland Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dani ayaa isfahmi waayeen sida ay qorayaan warbaahinta Garowe ka soo baxda iyadoo lagu daabacay maanta warbaahinta Puntland Times in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale markaasi madaxweynaha Puntland Siciid Dani ay isfahmi waayeen sidoo kalena Xasan Sheekh Maxamuud uu safar markaasi kaga soo laabanaya Puntland waji gabax iyo ceeb uu kala soo kulmay madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa sheegay in aan lagala tashan magacaabistii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya golaha wasiirada iyo sidoo kale taliyayaasha ciidamada
gaar ahaan taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kaasoo loo magacaabay Mahad Maxamed Salaad wuxuuna madaxweyne Deni ka foq waayay qodobka ah la tashi la'aanta Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo sidoo kale la isku fahmi waayay markaasi maareynta qaadka iyo sidoo kale sidii loo qaybsan lahaa mashruuca qaadka ee dalka Soomaaliya ay ka soo xiranayso dalkaasi Kenya taasina wuxuu Deni sheegay in aan la ogolaan doonin in shakhsiyaad sidoo kale ganacsada Puntland qaadkaasi lagu soo wareejiyo ayuu yiri markaasi Xasan Sheekh Maxamuud balse isaga markaasi dad beeshiisa ah Deni uu codsaday in lagu wareejiyo qaadka waxaana taasi ka biididay wasiirka arrimaha dibadda oo ka soo jeeda Puntland isagoo sheegay in qaadkan lagu wareejin doono shakhsiyaad ay isku beel yihiin taasina waxay keentay in khilaaf uu ka dhex dhasho wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo madaxweynaha Puntland Siciid Deni waxaana madaxweyne Deni uu ganafka ku dhuftay wax walba ay ku heshiin lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay inuu yahay madaxweynaha Puntland loona baahan yahay in looga dambeeyo arrimaha wax qaybsiga iyo sidoo kale markaasi qoondooyinka iyo mashaariicda markaasi madaxweyne Deni ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda kadib la tashiyo la sameeyay Puntland iyadoo sheegtay markaasi Puntland ama Siciid Deni uu sheegay in Puntland ay yihiin maamul qaangaar ah sidoo kale loo baahan yahay in waxaysan ogeyn uusan ku dhaqaaqi karin Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan xaaladaha siyaasadeed ee arrimaha gudaha iyo sidoo kale waxyaalaha ku wajahan arrimaha dibadda ee xasaasiga ah qoondooyinka dhaqaale ee adduunyada laga helayo iyo mashaariicda waxaana madaxweyne Deni uu sheegay in haddii Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxiisa ay ku kacaan tallaabooyin degdeg ah ay xiriirka u jari doonaan waxaana arrintaasi ka xanaaqay Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in dowladda dhexena ay wax u madax bannaan tahay halka Puntlandna ay wax u madax bannaan tahay waxaana Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayay inay u hoggaansamaan Puntland balse Siciid Deni ayaa si toos ah u sheegay inaan la shaqeyn karin Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama hogaamiyaha kooxda Damjadiid ayaa safarkiisa Puntland wuxuu ku soo dhamaaday hal bacaad lagu lisay oo kale waxaana markaasi uu wajigabax iyo ceeb kala soo laabanaya deegaanada Puntland Xasan Sheekh Maxamuud oo horey u weysanaa maamul goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa xilligan waxaa gacantiisa ka baxay maamulka Puntland iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu khilaaf adag kala dhaxeeyo maamulka Koonfur Galbeed dhaga kalena saaxiibayaal madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ku jiraa abaabulkii ugu dambeeyay oo hortagay kooxda Damjadiid gaar ahaan weerar halis ah oo kaga cabsi qabay inay ku soo qaadaan kooxdani magaalada Baydhabo maanta waxaa lagu soo bandhigay 1500 oo askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland kuwaas oo uu tababartay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku andacoonay in weerar culus uu kala kulmi karo kooxda Damjadiid oo ka urinaysa saaxiibkii siyaasadeed oo la ahaa madaxweyne Farmaajo xilligii ololaha doorashada ama xilligii ay xukuumadii nabad iyo nolol dalka ka talinaysay waxaana la sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay ku sugan yihiin siyaasiyiin sarsare oo mug iyo miisaan ku leh xisbiga nabad iyo nolol iyagoo markaasi la taliyaal u noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kalena waxaa laga baaraan degayaa qaabkii loo wajihi lahaa kooxda Damjadiid oo xilligan qorsheynaysa in Roobow Aadan Madoobe iyo Jawaari ay u soo diraan deegaanada Koonfur Galbeed waxaana madaxweyne Laftagareen oo la taliyaal markaasi ama la tashiyo la sameeyay siyaasiyiin sarsare iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo mar ka tirsan xisbiga nabad iyo nolol iyadoo la isla faguray in kooxda Damjadiid markaasi dagaal culus lala galo waxaana la filayaa in dhawaan deegaanada Puntland gaar ahaan Garowe uu ka dhaco shir weyn oo ay isugu imaan doonaan madaxda maamul goboleedyada Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo